هادو الكيني حيل كدبر كساري لو دار شقرنكا ومحاداحو حولي دي سوقيسا محا حولي دي سوقيسا هيدا هادو الكيني حيل كدبر كساري لو دار شقرنكا ومحاداحو حولي دي سوقيسا محا حولي دي سوقيسا كوديل كبوحشة ديشي كمرنتي نبطو سهايستي كدور سوقي دادالكي نايوما أركايا دكتورة وي مغليسا وانا نحلو يال وانا نحلو يال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض داوديال كنا soo dhawaada barnaamij aanu ku eegayno wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shaacisay inay xakameeyeen cudurrada shuban biyoodku ka mid yahay iyo cudurradii kale ee xilliga abaaraha dalka iyagu ka dilaacay shir saxaafadeed ay arintaasi kaga hadlayaan ayaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye wasiiru dawlaha wasaaraddaasi caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxay ku qabteen xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland xafiiska wasiirka caafimaadka sida aragtaan waxaan ku jiraa shirkii subaxnimada aanu yeelinay maalin kasta oo intii ay dhaceen abaaraha waanu kaga wada hadallo xanuunada wadanka ay abaaruhu ku soo kordhiyeen iyadoo wasaaradda madaxdeedii ay ku maqnayd gobolada oo dhan agaasimeeyay waxeedii iyo anigu laftiga aan ka soo noqday dhawaan gobolada bariga qaar ka mid ah xaaladda guud ee wadanku way degan tahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadkuna goob kasta joogaanba waxay ku maqan yihiin hawlgalkooda caadiga ah maalin walbana waanu helaa warbixino sida ay wasiirada imika hor yaalin warqada subaxlaha ee xaaladda wadanku halkan marayso iyadoo aan ku soo ururinay wixii warbixinaan soo wada helay wasiirka iyo wasiir dawlaha oo labadooduba halkan imika goobjoogka shaqaalaha wasaaradda intii ugu badnayd waxay ku maqan yihiin gobolada iyo degmooyinka dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leenahay mar walba ag taaganahay agtiinaan joognaa haddaanu haafana wareed ka maqnahay waa la soo gaaraya waxaanu helaa xogo badan oo ku hawlgallo xogaha qaar badan waxay noqdaan sidii loogu talagalay intooda badan laakiin waxay noqdaan xog aan sida saxda ahayn taasina waxay keentaa xogaha aan saxda ahayn waxay lumiyaan in kharash badan iyo waqti badan ku lumo iyadoo marka la sheego war aan sax ahayn ay habsaamayaan war sax ah oo laga hawlgeli lahaa marka waxaan ka codsanayaa waxyaalaha halista ah markay arkaan sida shubanka oo kale inay run ka sheegaan oo aan tirada la farabadin ee la yiraahdo xaaladaas halka ka taagan qof hebel la yiraahdo xanuunsanaya ama qoyskiisa ama caruurtiisa xogta saxda ah waxay dedejisaa tayeynta shaqada micnihii subax kastaba waxaanu helaa xogta cidii xanuunsanaysa goobaha caafimaadka oo dhan waana loo soo gudbiyaa sidaan horeba u sheegnay wasaaradda caafimaadku baaraandeg iyo xog iyay talada ku gorfaysaa oo ay ku guurtaa sidaa daraadeed ilaahay mahadii kiisaskiina loo soo sheegay ee shubanka iyo xanuunada kale ee ay abaaru keenaan ay nafaqa darradu keento aad bay hoos ugu dhaceen subax kastaba xogta sidaas aanu helaa gobol kasta iyo degmo kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland sidii baanu heegan u nahay hawsha u diyaarnahay agaasimaha guud sidaa uu sheegay meel kastaba goob caafimaad iyo nus saaca qofka muwaadinka ee reer Soomaaliland u jirta idinkama dheerin hawshiina waanu wadnaa teamska yagii iyo madaxdayadii agaasimo waaxyeedkiina sidaasay kormeerka ugu marayaan dalka oo dhan alxamdulilaahi rabbil caalamiin hawshana halkaas aanu ka wadaynaa sida agaasimaha guud iyo wasiiru dawladuba sheegeen wasaaraddu waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo ah xakamaynta cudurrada ay keenaan abaaruhu waxaanu galnay dadaal aada u weyn waxaanu gaadhnay oo dawo
iyo xirfadlayaal caafimaadba gaadhsiinay dhammaanba waddankeena meel kasta degmo kasta tuulo kasta waad kala socoteen baan u malaynayaa tviyada dhammaan madaxdii wasaaraddu way maqan tahay meelo kala gedisan iyo kooxo kala gedisan bay wataan meesha from corner ilaa corner wasaaraddu way wareegaysaa dawooyinkii iyo wixii loo baahnaana way geysay dadaalkaa faraha badanina wuxuu dhalay in aan hoos u dhigno xanuunadii ay keenayeen abaaruhu keenayeen oo ay ka mid yihiin shuban biyoodka oo fureenka iyo nafaqadarrida waxaa farxad weyn noo maanta inaan sheegno meesha noogu daran oo ahayd wajaale waxaan ku guulaysanay inaanu ka dhigno zero oo iminka riboodkan helaynaa waxa weye 3 maalmood ugu dambeysay ma jiraan wax shuban biyood ah oo wajaale nalooga soo sheegay ama ka dhacay taasina waxay ku timid dadaalka shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda waxaanu wadaynaa dadaalka ilaa intaanu gebi ahaanba tirtirayna xanuunadaas waxaan u mahad celinayaa dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ku jira heeganka dadaalaya meel walba maraya aad iyo aad noo mahadsantahay in shuban biyood dad fara badan ay ugu dhinteen dalka arrintaa maxaad ka leedahay arrintaas waa waxba kama jiraan dhimasho way jirtay laakiin waxaan maleynayaa inaanay agaasime haddaanan khaldanayn inaanay 8 qof ka badnayn dalka oo dhan waxaan arkayay joornaallo iyo tvyo ka hadlaya 12 qof oo ku dhintay coodanle waa been taasi waa beeninaynaa coodanle dhulkii agaasimuhu soo maray ayay ka mid ahayd maalintuu ka soo noqday laftigeeda ayay yidhahdeen 12 qof baa ku dhintay marka warkaas waa war beena hadda ka horna waan ka hadlay waxaan aad iyo aad uga codsanayaa miidiyaha saxaafadda guud ahaan warka ay helaan ayaa jirta marka fadlan haddaad heshaan war caafimaad oo odhanaya xaaladaas halkaa ka taagan la soo xidhiidha madaxda wasaaradda oo ka caddeeya dhinaca kalena dadka propagandada wada ee siyaasadaynaya xaaladda abaaraha dalkeenu ku jiro iyagoo cod ku dacaydaynaya iyana waxaa leeyahay ka waantooba xaalad adag baa dalkeenu ku jiraa xaalad la isku propagandeeyo xaalad la isku dacaydayo midna maaha dhammaanteen waajib baa inaga saaran aynu gacmaha isqabsanno waa run xanuunadu aad bay inoogu soo bateen xanuunadu weligoodba wuu jiri jireen oo waa loo dhiban jiray laakiin imika waa la ogaaday oo qofka waxaas ahaya la ohanaya halkii berigii hore lagu odhan jiray bas buu u dhintay qayb keliyaha sifaysa waynu leenahay oo runtii shaqo wacan qabata dad badanna badbaadisay waad ogtihiin oo markii hore dee qofkii awood lo unbaa dibadda loo qaadi jiray marka keliyihiisu dhintaan ama awood gabaan iminkase waxaanu leenahay xarun keliyaha lagu sifeeyo oo aan dadka lacagba laga qaadin qof waliba uu awoodo mashiinadii sanad walba waanu kordhinaa hadda miisaaniyaddii noogu jiraan inaanu mashiinadii sii kordhino si baahidii oo dhan loo daboolo laba mashiin baanu ku bilownay hadda waxaa marayaan 8 ilaa 6na waanu ku daraynaa dhismihiisana waanu sii kordhinaynaa dhinaca aad sheegtay waddankeenu dhaqaalihiisu aad buu yiri waddan la aqoonsan yahayna ma nihin quality control capacity-gii leh ay ku baari lahayd waxa dalkeena soo gelaya ama cunto ha noqoto ama wax kale ha noqotay ma aynu lihin laakiin hadda ayaa la bilaabay in miisaaniyadda lagu daro waxaan rajaynaynaa dhaqso inaynu u gaadhno heer awooddeenu gaadhsiisan tahay in aynu waxa dalkeena soo gala iska baarno kale dhinaca bariga haddaynu eegno booholdo deegaanka aad ka soo jeeda cisbitaalka guud ee booholdo xiray deegaamada bariga oo dhan arrimaha caafimaadka waa laga dayranayaa sidii loogu talagalay mad wada gaadhsiinin arrintaasi miyaanay noqonaynin dadadoo dhinaca aad ka soo jeeda aad ugu daran tahay su-aasha labaad haddaan ku raacaya cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa sidii wasiiradii hore uma kormeertid bukaan kama warhaysid weli adoo cisbitaalka intaad booqatay bukaanada kormeeriya lama arag arrintaasina miyaan noqonayn inaad ka gaabsa gobollada bariga wasaaradda caafimaadka priority u haayeen 3 sano iyo barkii
u dambeeyey awoodda iyadoo dhan waanu suugay inaan wax ka qabanno wixii aanu ka qaban karnayna waanu ka qabanay xaaladda caafimaadna aad bay u wanaagsan tahay waxqabadkii ugu badnaana wasaaraddu waxay ka qabatay gobollada bariga waxaanu ka dhisnay dhismayaal aad u badan waxaanu MCH-doodaanu kordhinay iskuullada caafimaadkaan dhisnay muxuu ahaa SDF-ta labada cisbitaale ceergaaba iyo laascaanood waad la socotaa meelahanaan dhisma ka TB centers badan baanu soo kordhinay waxaan malaynayaa ummaddu way aragtaa khadar garan maayo meel adiga kaa dhaaftee inaanu beriga wax badan ka qabanay awooddeenu way xadaysan tahay oo wax walba sidii loogu talagalo uma qaban karno laakiin intii taalka iyaga ahayd wax badan baanu ka qabanay dhinaca kale ta cusbitaalka cusbitaalka Hargeysa waxaan malaynayaa inta wasaaradda joogay wixii laga qabtay inaan laga qaban intii Soomaaliland jirtay indhaha macallina xafiis baan ku dhexlaayay xafiis baan ku leeyahay wasaaradda ku leedahay aan anigu ka furay cusbitaalka kormeerkaygu aad buu ugu badan yahay sanad walba waxaan soo kordhinaynay 3 sano u dambeysay dhismo cusub iminka waxaa dhammaanaya ood ogtihiin emergency international standard oo iminka gacanta laga qaaday iminka almost dhamaaday IC unit baan dhisnay oon hore uga jirin payment wards baan soo kordhinay 30 qol ah oon hore u jirin waararkii baan dhisnay neonatalkaanu samaynay dhisnay iminka waxaan dhisaynaa waararkii dhalmada oo miisaaniyadda ugu jira waxaan keenay qalab cusub waxaan dhisnay qaybta kaliyaha waxaan keenay CT scan-kii ugu horreeyay ee u yeesho payment wards-ka waan sheegay qalab aad u fara badan ayaanu keenay mental health absolutely marka waxaan malaynayaa taana bal intaa tagto adigu waxaan malaynayaa waxa kuugu dambaysan malaynayaa 3 sano iyo barkoor khadro waan tagaa waan isu taagaa aad baan u kormeeraa sometimes koodiyo barkaan marmar habeenkii marka aad baan u kormeeraa laakiin tago soo warayso insha Allah way wasiireen magaca waa Peter Faisal waxa ka socda telefishinka Star arrimahan aad nagu sharaxday marka mawduucan aan ka baxno maadaama Charles ku helna maalinta arrimahan ka hadlayso hadda gudoomiyaha kulmiye ayaa gobolada bariga ku sugan wararka qaar waxay sheegayaan in khilaafidii ka dhaxeeyo wasiirro badan oo raacay bariga aadna deegaanka soo jeeda aad ka hadhay arrintaas bal waxaad ka oranayso iyo su'aasha labaad arkay khaatumo iyo wada hadaladii Soomaaliland bartaan wax kale okay waa su'aal wanaagsan anigu kama harin waftiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga xaalad emergency oo awaaraha ah ayaan ku mashquulsanayn waqtigu maan helayn aan jeclaan inaan raaco haddana waqtigu maan helayn inaan raaco waxaan ku mashquulsanayn xakamaynta cudurradan dhinaca heshiiska khaatumo iyo Soomaaliland maalintii hore waa la weydiiyey sida laynoo sheegay ama aan ognahay wada hadal baa socda cali khaliif inuu Soomaaliland ku soo biiro oo ka mid noqdo dadkiisa iyo dalkiisa u yimaado aad baan u soo dhaweynayaa anigu go'aanka garaadada waan daawaday ay ka soo saareen higlada garaadadu waxa weeye waa madaxa ugu sarreeya dhaqanka ee bulshada qadarin iyo mudnaan bay leeyihiin go'aamaday soo saareenna sidaan anigu u fahmay waa dhammaan go'aamo uun ka hadlaya tabasho ay tabanayaan tabashadoodana waanu insha Allah eegi doonaa waanu dabooli doonaa xaq bay u leeyihiin inay yiraahdaan waxaan laga weydiiyo arrimaha bulshadayda xaq bay u leeyihiin tay dalbadayna waa taa waa madaxii u sarreeyay marka kulley xukuumad ahaan dib aanu isugu noqon tabashadoodana waanu tixgelin barnaamijkaasi intaa daawadayaal aynu kusoo gabagabayno dhinaca farsamada sawir qaadista iyo habayntu waa Nimcaan Axmed Dagaal iyo aniga Axmed Cismaan Batuuna tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhankoo ee dhammayska tiray jeer waxeedina kuwa dheeli tiray howlaha dhankooda dhammayska tiray jeer waxeedina